daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. Al-Shabaab oo amar ku soo rogay shacabka xaafado ka mid ah Muqdisho. Dowladda federaalka oo ilaa hadda aan bixin mushaarka bishii hore ee qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. Ciidamo hor leh oo ay dowladda ka dejisay degmada Balad Xawo. Dani oo sheegay in laga yaabo shirka maanta inuusan furmin. Iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ku aadan ee kaga hadlayaan xaaladda doorashooyinka dalka iyo shirka Muqdisho ka furmaya. haddii aynu ku bilaabno maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa bilowday inay u hanjabaan shacabka magaalada Muqdisho iyagoo u diidaya inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka ay bixiso dowladda Soomaaliya kuwaas oo looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. dadka ku nool degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir gaar ahaan Hilwaadeyn, Yaaqshid iyo Madiino ayaa sheegay in loogu hanjabay in tilaabo laga qaadi doono haddii lagu arko iyagoo xiranaya face mask. dhalinyaro afka soo duubatay ayaa la sheegay in haweenkii la soo dhaafay ay la hadleen xaafadaha qaar ee Muqdisho iyagoo u sheegaya in aysan u hoggaansami karin awaamirta gobolka Banaadir. badanaa dadka warkan loo sheegay waxaa lagu qabtay wadooyinka iyagoo afka u xiran yahay, waxaana loo sheegay in cudurkan uu Allah hayo isla markaana Allah ay baryaan in dadka Soomaaliyeed uu ka dulqaado. 2 saaxiibinimo ayaa jidka laygu qabtay, afka ayaa u xirnaa, waxaan u qaatay koox mobile iga dhicirta, isdeji ayaa laygu dhahay, kadibna afka iska fur, kadib ayaa lay dhahay u sheeg dadka adiga oo kala ah in mar kale afka aysan soo xirnin, cudurkana Allah ayaa hayo, ayuu yiri qof ka mid ah dadkii ay la hadleen raggan afka soo xirtay. maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkii hore soo saaray awaamiir lagu farayo in shacabka Soomaaliyeed ay qaataan af-xirka, iyagoo sheegay in $5 oo ganaax ah laga qaadi doono qofkii aan wadan, halka goobaha ganacsiga laga qaadi doono $50 haddii ay qaadan waayeen awaamiirtii ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Ilwareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan ugu yaraan 5 wasaaradood oo ah kuwa arrimaha bulshada ee dowladda ayaa sheegay in ilaa hadda qaar ka mid ah shaqaalaha la siinin mushaarka bishii hore. dadkan aan la hadalnay ayaa sheegay in 1 bishan ilaa 10 bishan la bixiyay mushaarka shaqaalaha qaar ka mid ah dowladda, halka Arbacadii iyo Khamiistii toddobaadkan la siiyay qaar kale, waxaana weli harsan inta kale ee soo hartay oo u badan macallimiin iyo shaqaalaha ku meel gaarka ah. waa markii ugu horeysay 4 sano kadib oo ay shaqaalaha dowladda mushaar la'aan yihiin iyadoo ay dhammaad tahay bishii kale. arrimahan ayaa aad looga hadalhayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiisyada dowladda. sida ay warbaahinta horey u baahisay dowladda Soomaaliya waxa ay weyday kabkii ay ka heli jirtay dowladaha taageera Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha iyo sidoo kale ururada Soomaaliya ku yabo lacagaha. ururadan oo ay ku jiraan Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub ayaa lacagtii hakiyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen in Soomaaliya ay ku dhaceyso nidaam kaligii talis ah. badanaa waqtigii kala guurka dowladihii xilka isaga kala dambeeyay ma bixin jirin mushaarka shaqaalaha iyo ciidanka, inkastoo madaxweyne Farmaajo uu bixiyay dhammaan bilooyinkii hore ee uu xafiiska joogay. dhanka kalena haddaan eegno dowladda Soomaaliya ayaa degmada Balad Xawo ee gobolka Gada geysay ciidamo badan iyo gaadiid dagaal, kuwaas oo qayb ka ahaa ciidamo ay dhowaan ka dejisay gobolka Gado. ciidamada ayaa safar dhanka dhulka ah ku tagay degmada Balad Xawo kadib markii ay ka baxeen degmada Doolow ee gobolka Gado, halkaas oo ay diyaarad ugu dejisay dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamadan oo badankooda ka tirsan NISA ayaa waxaa dhowaan laga qaaday magaalada Muqdisho iyaga oo siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen siyaasiyiinta iyo madaxda ka soo horjeeda dowladda waqtigeedu dhamaaday. waxaa degmada Balad Xawo ciidamadan si weyn ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada degmadaasi, iyadoo ay ku helinayeen ciidamada taliyaha howlgelinta jubbooyinka ee ciidamada dowladda Bakaal Kooke, oo ay wehelinayeen taliyaha qaybta booliiska gobolka Gado Cabdulqaadir Cumar Biixi iyo saraakiil kale. ciidamada ay dowladda u daabushay gobolka Gado ayaa waxaa si weyn ugu hor yimid maamulka Jubbaland oo dowladda waqtigeeda dhamaaday ku sheegtay in ciidamadan ay halkaasi u geysay darteed ay tahay sidii doorashada Jubbaland ay ku afduwan lahayd xildhibaanada halkaasi ka soo galaya. maamulka Jubbaland ayaa ku hanjabay in cawaaqib xumada ka dhalata ciidamada halkaasi la geeyay uu qaadan doono madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. ugu dambeyn haddaan eegno madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay shirka dowladda ay qaban qaabadiisa wado inuu ka furmo teendhada Vizioni. waxa uu sheegay in dowladda shirkaasi uu qabsoomin karin arrimo jira aawadeed oo ay ku sheegtay in ay soo dhoobtay ciidamo booliis ah oo sida gaarka u tababaran ee Haram Cad. arrintaasi ayuu sheegay in darteeda aysan u qabsoomi karin shirka. waxa uu sheegay baaqashada shirka in mas'uuliyadeeda ay qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyadana aysan eed ku lahayn.
hadalka Siciid Dani ayaa waxa uu taabanaya dhinacyo badan sida beesha caalamka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada qaar ee Muqdisho u joogay inay ka qayb galaan shirka Muqdisho ka furmaya wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga inta